iyadoo ay xaalad adag oo daawo la'aan ah ka jirto cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Bukaanada cisbitaalka yimaadana ay daawada banaanka ka soo iibsadaan si dhaqaatiirta cisbitaalku ay ugu daweeyaan ayaa Alpha Trust waxa ay gaarsiisay deeq dawo ah oo loogu talagalay in wax looga qabto dhibaatooyinka daawo la'aanta ah ee ka jira cisbitaalka magaalada Beledweyne. Mas'uuliyiin ka tirsan ururka Alpha Trust oo ka mid yahay gudoomiyaha ururkaasi ayaa ku wareejiyay deeq dawo ah dhaqaatiirta cisbitaalka magaalada Beledweyne. Dr. Saleebaan Cabdi Cali oo ka mid ah dhaqaatiirta cisbitaalka Beledweyne ka howlgasho iyo sidoo kale Cabdiqani Jeenyo oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle ayaa ka mahad celiyay deeqda ay Alpha Trust soo gaarsiisay cisbitaalka Beledweyne, waxaana sidoo kale dhaqaatiirtu ay mas'uuliyiinta Alpha Trust uga warrameen baahiyaha ka jira cisbitaalka. gudoomiyaha hay'adda Alpha Trust iyo agaasimaha hay'adda Alpha Trust oo maanta uu gudoonsiyay alaab iskugu jirto daawo kala duwan oo qaybaha kala duwan, qaybaha antibiotic solution-ka waxyaabo iskugu jira ay maanta isbitaalka Beledweyne soo gaarsiiyeen. waan u mahad celinaynaa mar koowaad iyo mar labaad. waxa kale oo isla soo qaadnay in ay mar aan kormeer aan ku sameeynay isbitaalka gudihiisa aan maraynay baahiyaha ka jira isbitaalka. waxa kamid ah baahiyahaas hadda taagan aan isla soo qaadnay in ay ayaan wax ka qaban doonaan saalada qaliinka u baahan sariir qaliin maadaama sariirta hore qaliinka ku sameeynay ay wax yar ay yar duqowday. waxaan u baahanay sariir kale oo cusub ama haddii qaliimada ay bataan si loo sameeyo laba sariir qaliin loo sameeyo. wayna naga aqbaleen in sariirtaas ay soo gaarsiiyaan haddii Ilaahay raasida ugu dhaqsaa badan. tan kale waxaan mar labaad ka codsanay xeelka biyaha oo isbitaalka gudihiisa ku yaalo in u baahan yahay motor iyo dinamo u baahan yahay iyagana way naga aqbaleen inay mataqaanaa si dhaqsaan u soo gaarsiiyaan haddii Allah idmo. gobolkan xildhibaan iyo wasiiranka ah runtii waxa aan arkay waxaan la wadaagay walaalay Alpha Trust ayagoo iga aqbalay codsigii aan ka codsaday. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay codsigii qaar ka mid ah inuu gobolka yaalo ama uu isbitaalka dhex yaalo. runtii annaga dhexdeen haddaan isku naxariisan qofna nooma naxariisanayo. gudoomiyaha ururka Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye ayaa sheegay in ay wax badan ka qaban doonaan baahiyaha ka jira isbitaalka Beledweyne, waxaana uu sidoo kale ballan qaaday in ay fulin doonaan codsiyo ay u soo jeediyaan dhaqaatiirta oo ay ka mid yihiin dayactirka ceelbiyoodka isbitaalka iyo in ay sariirta qaliinka u soo iibiyaan. isbitaalka waxaan la kulanay Dr. Saleebaan iyo dad kale oo markino maamulka maanta waa indheena isbitaalka maadaama isbitaalka dhibaatadiisa ay aad iyo aad u ballaaran tahay. anaga waxaan sameynay hay'adda Alpha Trust anigii agaasimaha waxaan ka kuul garnay inaan isbitaalka wax u qaban oo aan caawino ama ha noqoto daawooyin ama sariiro ama codsiyada ay codsadeen waxyaalaadka ugu dar daawooyinka dad badan bukaano badan ayaa isbitaalka jiifo. daawada mar walba way yar tahay dhakhtarku u sheegay caloosha raashinadii lagu shubo markaas way u baahanay maalintii kale daawooyinka wax allaay ma ahan markay beeshinkii ayaa maalin walba lagu daaweynaya. dadka muxsiniintaana daawanaya waxaan jeclahay in isbitaalkan mar walba ay taageeraan ama waxay qabtaan hooyadii dhulka hooyo ku dhibaataysan. anagoo ka guurgarayna dhakhtarka Saleebaan wuxuu yiri iyo dadka maamulka wuxuuna weydiistay sariir oo qaliin ah. waxaan u ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaya ururka Alpha Trust sariirta qaliinka inaan halkan ma arkino aan insha Allah taala aan sablaagareyna aan keeno wiigan sidoo ugu dhaqsaha badan. waxa kale oo aad iyo aad ugu curdaarteen ceelka ku yaala meesha ceel biyoodka motorka uu ka halaysan yahay maadaama motorka halaysan yahay u baahan yahay bab cusub oo markina generator biyaha qaadayo. asagana Ilaaha ballan leh waxaan Ilaaha ballan qaaday insha Allah taala waa ka ballan qaadayna as Alpha Trust. mas'uuliyiinta ururka samafalka ah ee Alpha Trust ayaa intii ay joogeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxay la kulmeen ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo kamid ah duubabka dhaqanka Soomaaliyeed iyagoona kala hadlay sida bulshada Soomaaliyeed ay isku caawin karaan. ururka Alpha Trust oo ah urur samafal ayaa sidan oo kale howlo samafal ah oo dadka danyarta ah lagu caawinayo qaarkoodna shaqo abuur loogu sameynayo waxa ay ka sameeyaan guud ahaan geeyiga Soomaaliya.